masaajida dhismahooda iyo camiridooda in lagu camiro dhismo iyo in lagu camiro cibaado iyo in laga faa'iideysto iyo in lagu camiro in la nadiifiyo oo la hagaajiyo oo la udgiyo kulli camiraada masaajidu waxay kamid tahay acmaasha ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu waaweyn bay kamid tahay aayadii walaalkeen akhrinayay xaajiga alla wuxuu u markhaati kacay dadka masaajida camira laba arrimood buu u qiray iimaan horta wuu u qiray hanuunna wuu u qiray إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إن إله الرميسيهين وآخر الرميسيهين والله قري وحاكلوا إله أقري إني هنونسيهين ويجيتكي صحسنا هيان وشهادة يمرخات كعوين واه حسوق لي يمرك عمراد مساجد للسداد وسوق ليسا ودي قرية شنال لغو هلا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحسوق لي إن مساجدي لغو عباديست وروح قلبي سكوح الناظر أو كفائديست دروستك كسعود علمك كسعودة هاي عباديست صلاته كؤوغو روحي المساجد كي عامرون نوليو إذن وعامرات وحا عامرات إن مساجد كلو أذيبو لنظيفيو نلكيس الله هاجيو بيهيس الله هاجيو مسؤوليس الله هاجيو لأدقيو وعامرات قريبا أقوم يمسن بكمد وأنا كنت صيف في صحيح البخاري وحاكو يمد نبينا صلى الله عليه وسلم waxaa jirtay masaajidkiisa gabadh ama haweeney masaajidka nabiga nadiifin jirtay baa jirta oo ka shaqeyn jirtay oo hagaajin jirtay gabadhii way geeriyootay saxaabadu iyagoo nabiga u sheegin geeridii gabadha ay aaseen nabigu gabadhii waa tabay sallallahu alayhi wa alihi wasallam Soomaalidu waxay yiraahdaan يعني نين هدو تجي أن للتبين روح أن للتبايسين سوى الروح مجتمع ومعنا أبو فرديوه يا روح أما وحبا أما واحترك أهين أما وحياليه خاص كإستجوا كجوني ذا كعدك بس لكن المجتمع وحبا كبيرني هدو دينتنا لما تبوا هدو تجوا جورنا لما تمام ويكاس لكن روح المجتمع وحبا هي ولا تبع مركي اللواي نبي قبضي واتبي صلى الله عليه وسلم هول وين بهيس ورقبضي آوي مساجد كنديفين جر وحي رسولك الله وين دمت واسكا أصلي ومحا إيو شيء ويدين قبضوا هذا دمت واسكا فضو ديستين النبي صلى الله عليه وسلم وحي قبر قادي اتصل وصوتك قبر قادي بو يمت قبر قادي تويد بصلاة الجنازة كنت كذا النبي صلى الله عليه وسلم ومركي اللي قلت كذا الله عاصي كذب مردم به ينبي قبر قديم وصلاة الجنازة كنت كذا صلى الله عليه وسلم وكذا ولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبورتن قبرنا أي درس كالله أهي ضدك كتشراي مجد بيكو أهي مدو يمجد بيكون نولايا لكن صلاة أن كنت كذا قبرنا قبر كذا بقى إلهي قبورته هو النورية بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو في رصد أنت نولينا dadkay anfacday oo masaajidkay hagaajin jirtay ila nabigu tabay markay geeriyootayna darsidii ay la daristay qubuurtan ayaa ilaahay sabab uga dhigay in qubuurtii loo iftiimiyo dadkii loogu nuuriyo war maxay ku heshay inta maxay ku heshay gabadh ya masaajidkay ka shaqeyn jirtay intay dadka la dheereed waa inta sidaas daraadeed in masaajidda ilaahay loo shaqeeyo oo laga shaqeeyo oo la nadiifiyo oo la hagaajiyo oo nalka la bixiyo oo biyaha laga shaqeeyo oo masaajidii la dhiso oo lagu cibaadeysto dhammaanteed waxay ka mid tahay camiraadda masaajidda iyo koryeelida sida ilaahay suuratu nuur ku sheegay masaajidda ilaahay wuxuu amray in la kor yeelo yani lana dhiso sidoo kale wixii xumaanana laga koryeelo arintaasi marka waa arin muhiim ah masaajidu
sida nabigu sallallahu alayhi wasallam dhulka ilaahay meelaha ugu jecel yahay ugu khayr badan way il marka laga faa'iideysto sidoo kadalika sheegay akhuna xaajku sheegay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday isagoo wax kala qabanin shaqadii ugu horeysay uu qabto waxay masaajidku dhisay hatta markuu masaajidka dhisay isagoo guri ma dhisanin intuusan isagoo gurigiisa dhisanin uu degi lahaa uu masaajid ka bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam sababtu waxay tahay masaajidku waa laf dhabarta nolosha muslimiinta wax walba isaga ah wax walbana isaga ka horeeyay masaajidu marka waliba waagaasi xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo gadaal dambaba masaajidu waxay matali jirtay nolosho dhanba waxay u ahayd mixwar u ahayd meel lagu cibaadaystay ahayd ilaahay lagu caabudo waxay ahayd madraso iyo jaamacad wax lagu barto waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ma jirin madrasooyin banaanka iyo jaamacado banaanka oo laga baxa ma jirin meesha rag iyo dumar bay wax ka qaadan jireen wax lagu baran jiray masaajidku ah jaamacadii madrasada masaajidku ah sidoo kale hoggaanka mujtamaca meesha nabigu ka hogaamiyo masaajidku ah hadii ciidamo la dirayo meesha laga diri jiray hadii abaabul la sameeyo meesha laga abaabuli jiray xafiiska nabigu dawladda uu ka maamulo masaajidku ah bal iskaba dhaafee hadii dad xanuunsaday meel loo waayo masaajidka la dhigi jiray meesha hadda booska uu isbitaalku ku jiro waa kii Sa'd ibn Mu'adh nabigu sallallahu alayhi wasallam ku baxnaaniyay isagoo dhaawac dhigay nabigu sallallahu alayhi wasallam bal iskaba dhaafay waxa sugan inuu nabigu u isticmaalay masaajidka sidii xabsi oo kale xabsi dadka in lagu xiro tiirka masaajidka lagu dhajiyo waa kii Thumamah ibn Uthal odaygii reer Bani Hanifa markii dambe islaamay isagoo gaala soo qabtay nabigu sallallahu alayhi wasallam tiirarka masaajidka mid lagu xiray meesha lagu qoodinay waa gaal la soo qabto la xiray markaas markii waagu bariyo nabigu u yimaadaa warthumama wal waran ha iska gaabadalay maxamed haday dishan nin sharaf leh dishay haday siidaysan nin abaal leh siidaysan laakiin ma islaamay baa laga tagay subax dambe loo wal waran thumama ma jira ha iska gaabadalay hadalku waa intii maxamed war ma jiro أسد حال بنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى مرك الدنبو إسلامي بل النبي قال حكسه صلى الله عليه وسلم إنه يري شيطان بعد معي إنه صلاة إذا إجا جويه مركزان عنها قبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حدي آنا حصوصنين هذا الكي نبي الله سليمان هذانا حصوصنين تيرك مساجد كميت كميدان كحر لها إلى عروت الرمدين كعياران بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى الشيطان كي النبي وقبتي بضمعينه تيرك مساجد كحره ومحبوس صوما لكن مساجد كوحل لو استعمالي جري انت صدنود ما لو استعمالي جري مساجد كل شيء واحد هذا فراغ بدن حفيسيده كلا قد سلو سمي كل مساجد كقبن جري مساجدكم marka waa noloshii muslimka oo dhan noloshii mujtamaca muslimka oo dhan ayuu matalaya walaalayaal maalmahan dambe waayada waxayna soo martay xilli masaajida laga qaatay shaqadoodii oo dhan kulli shay waa laga wareegay masaajidii waxay ku soo hadhay oo u soo hadhay meelun salaadaha lagu tukado goobaha qaar kood iyo wadamada qaar koodna marka salaada laga baxo salaamu calaykum markaaba wax weeyaan albaab weyn baa lagu dhufanay حتى سنة أنت تكنيس إن اللجوء سجين بالغيابة سجدي وحكوسه هري صلاة اللجوء تكذب لكن إلهي فضله وياه ذنبه وحصون نقول يا دور كي كارنتي مساجد لهاين حرجيننا إن شاء الله تعالى بلا بدنا ندوا دركتين حافظها للدجو يجوبها كنعسجة meelaha masaajidu ka jirto ayaa ugu muhiimsan waana wax taqriiban 30 sanad tagay yimid waa boosaska iyo guryaha iyo hoteelada kuwa masaajida ku dhow baa ugu istiraatiijisan sababtu maxay tahay laana noloshu waa isbedeshay masaajidii dhowrka oday ay ku tukan jireen oo duqeydu ku tukan jirtay dhalinyaro la'aanta aha ma
dumarkiiyow dhalinyaradiiyow odayaalow odaygii meelu fadhiistuu leeyahayba sidaa markaad masaajidda hadda u fiiriso nin gadh guduudan inaad aragto waa yarta sooma meel laga tukadaa la leeyahay isbedel weyn baa dhacay 10 sanadihii tagay 20 30 40 sano tagay isbedel weyn baa yimid isbedelkaasi wuxuu keenayaa in ay diintii soo noqoto dhaqankeedii soo noqdo masaajidii soo noqoto ay soo noqoto dawrkii iyo kaalintii masaajidu lahaayeen ayna ku ekaanin kaliya meel uun lagu tukado lagu kala tago ee ay nolosha muslimiinta saameyn weyn inay ku yeelato shaki waxaan lahayn oo rajaynayna insha Allah taala markaskana inuu isbedel keeni doono mujtamaca magaalada ku nool waana laga yaabaa inaynu u noolaano cidii Ilaahay nafta ku simo dhulkan oo sidan ka bedelan kelimada hoosta ka xariiqa maanta soo halkan soo masjid iyo markis lagama yagleelin waxa laga yaabaa in Ilaahay nafta nagu siman u noolaano dhulkan oo isbedelay oo masaajidkii khayraadkii ka socday isbedel weyn u yimid hatta waxa isbedelaya deegaanka iyo dhulalkiisa iyo boosaskiisa iyo noloshiisa kulli waa isbedelay haddana hadda midaal idin soo qaato masaajidka sigiska ee ku yaala Islii boosaska ku dhagani waa ka qaalisan kuwa kale intaan masaajidku meesha imaanina boosaska kale bay la mid ahaayeen maxaa bedelay masaajidka bedelay meel walbana hadda waa sida dadku ruux markuu guri dagayo oo guri kireysanayo wuxuu leeyahay masaajid ma ka agdhowe suusasma masaajid intee buu u jiraa haddii la yiraahdo guriga laga kireynayo masaajidkuba saaran ama hotel markuu dagayo hotelkaad ii kireynayso masaajid area ma ku yaala halkaas uu ka bilaabaya sooma sidaas daraadeed isbedel weyn inuu keeni doono ayaa rajaynayna insha Allah taala masaajidka waxa la socda madrasadii baa la socota waxa la socota duruustii diiniga ahayd waxa la socota mashaaikhdii waxa la socota caruurtii oo quraanka xifdisa tartan loogu sameeyo xaflado loogu sameeyo waxa la socda mu'tamaraadkan hadda laga hadlayo meel uu laadihiin oo mu'tamaraad u heshaan mashaaikhdii culimadii idin yimaadaan inta markay hirgalaana waxa la socota Soomaalidii oo idin ku soo badata dad badan oo meelay degaan la yambaali u imaan doona waliba waxa dheer oo sir ah nolol jaban iyo qashqashaad la'aan Soomaalida muxuu ahay ama Kenya lagu dhibahay ama meelaha lagu dhibayo qashqashaad la'aan iyo nolol jaban iyo waxbarashadii inta hadda isku helaan soo idin imaan maayaan baaqaasi hadda baan u dirahayaaba shakina mala laana dadka waxay raadinayaan meel ay inta ka helaan meel ay nabadna ku helaan caruurtoodii wax ugu barato nolol ay ka bixi karaan helaan soo inta ma raadinayaan خلاص waxa maqnaa wuxuu ahaa saldhigii ay ku soo hiran lahaayeen hadii marka saldhigii la helay insha Allah taala waxa rajaynayaa inaadun xaajiga muxuu ahay dadkii u badan doono gar badan iyo inuu gali doono oo u maleeyo insha Allah taala Soomaalidu meesha ku soo badato khayrkeeduna waa bataa dhanka kale de waxoogaageeni ceebteeni iyo xilki waxoynay waa iska imaan doona isagu hadda midnimo iyo isku duubni baad sheeganaysaa Allah idin siyaadiyo laakiin meesha aynu ku soo badanno waxayni xil kala haana waa ku soo bataa